Assalaamu calaykum. Ku soo dhowdaa wada qaybta xigta ee ku saabsan sheekooyinkii taxanaha ah ee aan kaga hadlaynay sirdoonkii Soomaaliya. Sheekooyinkan waxaa si goos ah u daabacay sargaal ka tirsanaa hay-addii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NSS-ta loo soo gaabinayay oo lagu magacaabo Xiirane. Magac iyo aqoonsi dal kale ayaan markii saddexaad ku gaaray dalka Itoobiya kadib duulimaad 8 saacad ahaa sanadihii ugu dambeeyay ee sanadkii 1970kii. waxaa aqalkiisa nagu casuumay wasiirkii garsoorka ee dalka Itoobiya xilligaasi. Dhowr daqiiqo kadib waxaa soo galay gudaha gabar yar oo gugeedii aan ku qiyaasay 25 sano jir. Waxay sidatay qori iyo qalab kale oo ciidan oo ay ku joogtay. Intayna salaantay ayay qorigii aabaheed dhabta u saartay, kadibna aqalkii ayay hore u gashay. waxaa i galay shakigii ugu badnaa oo ahaa armaal lagu aqoonsaday inaad tahay Soomaali, kaaga sii darana sargaal ka tirsan ciidankii nabad sugidda qarankii Soomaaliyeed oo qorshaha aan u joogo Addis Ababa dejinteeda iyo diyaarinteedii iska lahaa. Waxaan hubaa in yar haddii la i tuhmaa qoorteeda dhinac la saarayo, waanse u bareeray oo waxaa beryahaasi ugu weynaa qaran Soomaaliyeed qiimo gaarana ii lahaa. Intuu dhoola cadeeyay ayuu yiri gabadhaydan yar iyo qaar kale oo asaageeda waxay dalkan u qabteen wax aysan jiilkanaga u qaban oo ay qaban waayeen, waxaana lagu dhigi doonaa baalayaasha taariikhda. wax yar kadib ayaa inantii oo doorkan muujinaysa dumarnimadeedii waxa ay soo dhigtay cabitaan iyo koobabkii lagu cabi lahaa ama haruubkii lagu fuudi lahaa. hadal dheer kadib oo u badnaa haaraanka iyo hagardaamooyinka loo maleegayo dalkan u dhashay una dhaartay inaan u dhimanayo ayaa si xushmad ay ka muuqata aan uga codsaday gabadhiisii in gaarigooda laadada ahaa ay ugu qaado islamarkaana igu geyso goobtii aan deganaa, iyo sidoo kale haddii aan doonayo inaan xoogaa ku meermeero magaalada inay ikaxayso. hadal dheer oo u badnaa haasaawo iyo hadal malagii galay ayaan weydiiyey halka ay heegan ay kaga jirtay. waxay igu tiri jigjiga iyo dhulka ku xeeran ayaan xilkeeda difaac aan kaga soo muuqanayay, haatanna waxaan ku jiraa fasax gaaban oo aan ugu imid inaan faamilkayga ama qoyska aan la qaato, waa anigii hadda dabka dhigay. dabdhigistana waxay ugu jeeday inay dhigtay dharkii ciidanka ee i xirneed markii ay guriga soo gelaysay. aniga oo qarsanaya ciilka iyo carada iga buuxda ayaan idhi, ma dagaal ayaad u joogtaan mise difaac kaliya? intay qosashay ayay tiri xamar iyo xeebaheeda, barbare iyo banka diyaaradaha dagaalka ilaa aan taabanno waxaan ku dhaarannay inaan qoriga aanan dhigin. haddii aan dhimanana dhasheenna ayaa qaadi doonta inta laga xaqiijinayo riyada qaranka Itoobiya. intaan garabka gacal beeneed uu ku jira aan ka saaray waxaan ku idhi, sawtii madaxdeennii Afrika ku heshiiyeen xadku ka tagay gumaystuhu dowlad kasta ha ku nagaato. intay isoo eegtay ayay tiri, dunidu waa naga ogoshahay inaan qabiilka Soomaalida ee naga falaagoobay aan xoog iyo xeelba aan ku soo ceshanno. waxaan ku idhi, laakiin sida ay qorayaasha taariikhdu wariyeen dadkaasi Soomaalida ah waa qaar aan la loodin karin oo dagaalkana ku dara naftuna aysan qiimo u lahayn haddii ay wax leeyihiinna xoog looga qaato. waa qoom darana adiguna gabar qurxoon ayaa tahay, yaysan naga kaadafino xoog isu ilaali. aniga oo ku laray dhoolla caddayn bayn ah ayaan daaqadii iska furay. intay soo degtay ayay hore ii sii raacday ilaa aan ka gaaray kadinkii fundaqii ama goobtii aan u hoyanayay ee habeenkaasi aan doonayay inaan seexdo. muddo gaaban kadib waxaan ka dhammaaday hawshii aan u joogay Itoobiya anigoo ku jooga magac iyo maqaam qalaad. waxaan ku soo noqday magaalada Muqdisho iyo xaruntii dalkayga. markaana waxaan ahay Xiirane oo ka soo noqday tababar dhinaca ciidanka oo ugu maqnaa dal aan saaxiibo nahay. sidaas ayaa loo sheegay saraakiishii hoose iyo shaqaalihii dharaarahaasi aan wada joognay. wuxuu igula ballamay taliyihii nabad sugidda Soomaaliya ee xilligaasi inaan warbixinta aan sido aan ku siiyo funduqa Jubba. salaadii maqrib markii aan ku soo dukaday masaajidka Sheekh Cali Suufi ayaan soo eriyay garaasiida gaadiidka dowladda ahaa oo si un iigu soo wareegtay. anigoo isle waad ka daahday ayay jidkii Colombia iyo wadada aada Kismaayo ee halkay isaga darsamaan waxaa iiga banjartay mid ka mid ah taayirka. kadibna intaan dhinac jidkii aan uga saaray gaariga ayaan soo lugeeyey. aniga oo neeftuuraya ayaan soo galay Jubba oo aad mooddo habeenkaasi in laygu sugayey. gabar shaqaalaha ka mid ah ayaan weydiiyey xaalka jira caawa. hebel ayaa aroosaya caawa ayaa la igu jawaabay. waa wiil ina wasiir ah. dhowr wasiir oo wasiirka arrimaha guduhu uu ka mid ahaa ayay indhahaygu ay qabteen. xoogaa kadib ayaan u soo galay taliyihii ciidanka nabad sugidda asagoo si u degdegsan ayaan dhinac shaax iskula fuudnay. waa markaan u dhiibay intii igu cusleed ayuu furihii gaarigii iga qaatay. waxa uu ka qaatay wadihii keligii ayuuna kaxaystay. waabarkii ayuu xafiis isugu keenkeen yidhi, hagaag jaalle ayaana ugu jawaabay. markii waabarkii aan kulanayna waxaan u gudbiyey dhammaan xogihii aan soo helay. Xiirane waxa uu ka mid ahaa saraakiishii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee sanadihii 1976 ilaa 91.
NSS-ta waxaa loo soo gaabiyaa National Security Service oo ahayd hay-addii nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ama Intelligence Agency of Somalia. xilligii dowladdii maxamed siyaad barre xarunta NSS-ta waxay ahayd magaalada muqdisho intii u dhexaysay 70kii ilaa 90kii wixii ka dambeeyay dagaalkii Soomaaliya ee 91dii dhacayna hay-addii NSS-ta howlgab ayay noqotay waxaana sanadkii 2013 dib loo soo cusboonaysiiyey iyada oo loo bixiyey magaca NISA oo loo soo gaabiyo National Intelligence and Security Agency. waxaad ku mahadsantahay la socoshada iyo muuqaaladan halkan ku soo gudbiyo qaybta hoose ayaad aragtidaada igu reebi kartaa muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamaha noo shafee rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamaha noo shafee shamsiyo dayaxii makaado shaqsina nabigaan mataline rasuulkii nafluu shakila'aan cilmigiisa ka wada sharaabo shamsiyo dayaxii makaado shaqsina nabigaan mataline rasuulkii nafluu shakila'aan cilmigiisa ka wada sharaabo shaqalka quruxdan lahayne shaanshaan udagiisu gaadhiyo naxliga xumo horku sheeliyo sharaarad balaga siifeeyo shaqalka quruxdan lahayne shaanshaan udagiisu gaadhiyo naxliga xumo horku sheeliyo sharaarad balaga siifeeyo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamaha noo shafee qur-aanka sharaxan jibriil rasuulkii dusha uga sheegay habeen dadku oo shib wada yidhi hawada kii lagu shareero qur-aanka sharaxan jibriil rasuulkii dusha uga sheegay habeen dadku oo shib wada yidhi hawada kii lagu shareero bureeqa heesa shaaximan samada shisha ula talawde عشيق شرف لقو حسومه إلهي كوذا شيرينو بريقا هيسا شاحما سمد شيشة ولا تلوذي عشيق شرف لقو حسومه إلهي كوذا شيرينو رسولكي شرفت مدنيو دوني ذا شاع لوغا ديغيو shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamaha noo shafee rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamaha noo shafee